xukuumaddu sidaa horeba u ogtihiin aad horeba ogeydeen waxay go-aansatay in dib habeyn lagu sameeyo dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tirakoobkii hore ee la sameeyey qeybtiisii hore way dhammaatay aada iyo aad baa loogu guuleystay bunjirka waxii laga gaaray waxa in la tirakoobo ciidanka qof kasta oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan na uu maro biometric uu maro loo sameeyo account tirakoob rasmiga oo account nin walba uu ku mushaar qaato account halkii uu awal mushaar gacanta lagu sii jiray kaasna uu ka dhamaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nin kastoo ciidan ka tirsan waxaa maanta uu leeyahay account loogu soo shubo account qeybta hore saasay ku dhamaatay waxaa hadda bilaabaynaa mashruuca qeybtiisa labaad dib habeynta qeybtiisa labaad oo laba ujeedda leh ujeeddada ugu horeysa oo koowaad ay tahay in lagu qiimeeyo dadkii ciidankii la tirakoobay iyo meelihii la tirakoobay in la xaqiijiyo nin walba in laga helo meeshii lagu tirakoobay unless uu uga maqan yahay sababo mucayana ciidanku waa ciidan dagaal ku jira sababo mucayana oo la ogyahay taliya uu ogyahay uu ku maqan yahay in marka nin walba laga helo meeshiisi qeybta labaad in la tirakoobo ama la xaqiijiyo ama la ogaado xaaladda ciidanka degan meeshaas uu ku sugan yahay xero la-aanta ciidanku xero la-aan bay u badan yihiin teenooyin wey waxay degan yihiin marka in la xaqiijiyo sidii xero loogu samayn lahaa sidii loogu kala horumarin lahaa xeryaha meelahaasay u kala muhiimsan yihiin meelaha caafimaadkii biyihii iyo wax walba sidii loogu samayn lahaa in mataqaanasa lasoo xaqiijiyo oo lasoo tirakoobo iyo sida loo kalo priority lagu kala horumarin lahaa oo mashruuca labaad qeybtiisaas u bilaaban lahaa nin kastoo marka taliyaha ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xil baa ka saaran taliyaasha colalka taliyaasha qeybaha dhammaantood taliyaasha ururada xil baa ka saaran inay la shaqeeyaan guddigaas tegi doona ee soo tirakoobka mar labaad soo xilin doona soona xilin karaa soona xaqiijin karaa xaaladda meesha ku sugayn iyo xaaladda ciidanka waxaa laga rabaa inaad la shaqeysaan baa laydinka rabaa ood gacan ku siisaan ood soo dhaweysaan waxaan mar labaad idinku boorinayaa dhammaan masaraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khaas ahaan taliyaasha qeybaha taliyaasha colalka taliyaasha ururada in arrintaas iska xil saartaan oo fulisaan saldhigga jiritaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa jiritaanka qarannimada soomaaliyeed si qarannimada soomaaliyeed aan u difaacno waxaan u baahannahay xilmi wuxuu naga saaran yahay inaan u diyaarino ciidan difaaca dalkan waana idinka ragga xilkaas uu saaran yahay waana ragga u dhaartana waa idinka waxaa laydinka rabaa marka inaad la timaadaan dowladdu markay qeybteeda ka timid dhamaystirtay idaa idinkuna saraakiisha inaad qeybtiisa kasoo baxdaan waan aaminsanahay inaad ku filan tihiin inaad kasoo bixi kartaan waxaan mar labaad idinku boorinaya arrintaas siday tahay inaga soo baxdaan oo aada u diyaarisaan ciidankii dalkan difaaci lahaa waa aaminsanahay inaad kasoo baxaysaan waa idin salaamay asalaamu calaykum